السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalkan walaalaha family waa markale iyo muuqaal cusub oo idinkaga diyaarinay musalsalka walaalaha xalqadiisa 65aad faaladeeda oo dhameystiran. waa tahay daawada deetay markii koowaad soo booqatay janaalkan subscribe inoo saar sidoo kale muuqaalkan in loo like garee waa mahadsantahay intaa ka baadi ee ku soo dhawo faalada xalqada 65aad oo dhameystiran. haddaba faallada ayaa waxay ka bilaabanaysaa ama xalqada ayaaba waxay ka bilaabanaysaa Aasiye oo lacagtii ka soo qaadatay islaantii Sheewaal ahayd si ay magaaladan uga tagaan isla markaana lacagta markay qaataan kadib ay nolol cusub ugu aas-aastaan. Aasiye markii ay ka timaaday kadib gurigoodii ayay imanaysaa ama xirdigaagii ama mooradii markaas kadib waxay meesha ku arkaysaa wadaadii Seefki ahayd. Seefki ay isa salaamayaan. Aasiye ayaa weydiinaysaa Cumar iyo Emil meesha jiraan. Seefki waxay dhahaysaa Cumar weli muun iman. Emil waxay jirtaa islaantii wadaadii sabaaxad ahayd ayay la joogtaa oo gurigooda ayay seexatay. markaas kadib Seefki ayaa Aasiya ku dhahaysa yani macaafimaad qabtaa meel baad ka timid xageed ka timid shaqadii miyaadan ka iman. Aasiyana waxay dhahaysaa shaqadii maan ka iman meel kale aan ka imaaday. Sheewaal ayaana ka imaaday. iyaduna waxay dhahaysaa Sheewaal talo maxaad ka doontay waxyaalo badan oo ii sheegaysa miyaa jira inaan warbal hawo soo qaadanee si aad iigu warantid waxyaalaha kugu dhacay waxaad soo martayba. kadibna labadoodii oo wada socday guriga ka baxayaan si ay u soo wada sheekaystaan oo daarada ama yani banaanka ay fadhiisanayaan. halka muuqaalka kale aan arkayno Singulo la sheekaysanaysa islaantii Xilmiye ahayd ama Xaliimo ahayd isla markaana ay caadi soo wada sheekaysanayaan si normaal ah. kadibna si kadiisa waxa albaabka soo gargaraaci doontaa iyadoo xanaaqsan Guunul ayaa soo gargaraacaysa. kadibna Singulo ayaa ka furaysa halkaas ay isku dagaalayaan. Guunulna waxay ku dhahaysaa ma adiga ayaa sabab u noqday oo na soo dacweeyay maqaayadeeda ma adiga ayaa sabab noqday in maqaayadeeda 15 cisho la xiro. Singulo waxay dhahaysaa ha aniga ayaa sabab u ah aniga ayaa dacweeyay. isla markaana Guunul ayaa isxajin way waxay ku dhigay qofka baska gubi waa aniga. Singulo ayaa xanaaqaysa halkaas ayna labadoodina isku dagaalayaan. Guunulna waxay dhahaysaa baska aniga ayaa iskale lacagtayda ayaan ku soo hagaajiyay la socaya dhahaysaa qofkii gubina waa aniga waxaad ka qadan kartid ma jiro waxaan u baadan waan sameyn. haddaba wada sheekaysiga Aasiye iyo islaantii Seefkeeda dibna loogu soo celinayaa isla markaana Aasiye wax walba ay u sheegaysaa. Seefki ayaana qorshe cusub keenaysa ayagoo Cumar ka qarinaya lacagta inaysan Sheewaal ka soo qaadin ay waxay dhahayaan magaaladan han iskaga tagno oo magaalo kale oo Sabaan Jameelaan adika ag dhow han u guuro isla markaana halkaasi nolol qurux badan iskaga noolaano. ayagoo iska wada sheekaysanaya Cumar ayaaba sikadiisa wadada ku soo maraya isla markaana wuxuu dhahay halkan maxaa ka wada qabanayseen ayaguna waxay dhahayaan waa iska wada sheekaysanay kadibna ayagoo is wada raacay guriga aadayaan. subaxdii xigtay waxaan arkaynaa Singulo banaanka ku qoraacanaysa balse ayagoo qoraacda diyaarsanaya waxay arkayaan baskoodii in uusan meesha oolin isla markaana baska ayay baraadinayaan meeshana waa ay ka waayaan. ugu dambeyntiisa waxay ogaanayaan baska inay Guunul qaadatay kadibna labadooda halkaasi muran dheer ayaa dhexmar doonaya dagaal weyn. Guunulna waxay dhahaysaa lacagteeda ayaa baskan ku iibsatay sidoo kale lacagteeda aan ku soo hagaajiyay lacagtan maadaama yani ninkii uu ku siiyay oo lacagteeda tahay waxaan rabaa inaan baskayga la laabto. Singulo waxay dhahaysaa lacagtaad kuma weydiin ninkaaga kala xisaabtan. Guunulna waxay dhahaysaa waxba igama galin ninkaygana kala ma xisaabtamay. ugu dambeyntii Oljan ayaa fikir keenaya wuxuuna dhahayaa bal ka warama labadiinuba haddii aad hal meel ka wada shaqaysiin oo baskaani uun aad ka wada shaqaysiin isla markaana midba qayb ay qaadato. iyagoo fikirka ogolaan gabdhaha way isku raacayaan sida ay Bike iyo gabadhii Cafra ahayd balse fikirka way qaadan doonaan calaa kulli xaal. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa qoftii Suuzaan ahayd oo isha ku haysa dabcan ninkii Caakif ahaa oo nabahad la jooga ayaduna ay ka maseersan tahay xag dambe waxaa sikadiisa oga iman doona Axmed Ilmaas wuxuuna dhahayaa yani mad u maseertay ninkaaga ayadana way ka naxaysaa sida keedska halka dambe kaga soo baxay. kadibna waxay halka ugu sheegaysaa in nabahad iyo dabcan ay Caakif isa soo qabi jireen wax maseerana aysan u arag sababtoo waxay dhahaysaa hadeen anigu ka maseertani nabahad inuu ninkay la taagnaayo sababtoo ah markii horeba ayada ayuu iska soo furay ayuu ani u guursaday marka maseerba ma u arki asagana halkaas ayuu qosol u dhacayaa maanta dhan waa u qoslayaa. muuqaalka xiga waxaan arkaynaa ardayda oo fasalka joogta afar ayaana loo qaybin doonaa qof walbana waxa loogu talagalay inuu mashruuc gaar ah soo sameeyo ama afartii ardayba hal mashruuc ay la imaadaan isla markaana qaybta ama afarta waxaa ka mid ah Cumar, Sarbi, Yasmiin. waxaan ka wadaa Cumar, Sarbi, Suuse iyo Leila ayaa hal qayb ah. marka Cumar iyo Sarbi iyo Suuse iyo Leila waa hal group waaye. groupka kalena waxa weeye Aasiye, Duruk, Yasmiin, Berki. halka groupka kalena uu yahay Uljan, Cafra sidoo kale labadii kale ay ahaayeen
laba kale ayaa ku jiray waxa weeye toolga iyo qofkii afraad iyo bas waa inta afarta weeye sax waxa weeye Cafra Uljaan IBK toolga groupka kalena waa intaasi marka group ay wada fadhiisanayaan oo casharada uga wada shaqeynayaan isla markaana hal mashruuc ay isu soo raacayaan oo hal mashruuc ay soo diyaarsanayaan oo ay la imanayaan waa tahay qoftii Suusaanada Caakif ee la hadlaysa waxa ku dhaysaa inuu maanta nabaad maxaa ku daba dhigay asaguna wuxuu dhahayaa maadaama uu tahay maamulaheeni yani wax kama diidi kareeyada hadalkii la soo doonanaysa marka saan baan la socday yani macquul ma aha ishaydu inay aragto gabadhan adiga ahayn adigoo kaliya ku jecel yani maad kama seeraysaa Suusaan waxa dhahaysaa masaar maxaad ula jeedaa aniga xog kama seeray yani waan ku sika weydiiyoon markaas kadib wuxuu ku dhahayaa bal sax ma soo cabnaa idan kadib waxa dhalay hawle aan leenahay caadi wax dhibaato ma arkay muuqaalkii xig waxaan arkaynaa ninkii doorukaha iyo Asiya oo cafeteria iska fadhiya isla markaana sawra ayuu dadaawanayay oo Asiya iska tusayay Asiya waxa ku dhashay dooruk meeshan aad u qurux badan tahay doorukna wuxuu dhahayaa hadda ka hor aniga reerka anagu meeshaasi tagnay isla markaana Umar ayaa dhahaya يعني Asiya aniga xalay tool fikradiini in magaalada ka tagno Sabantiya meelaan hadda dadaawanaysa aan tagno aad ogama helin markaas kadib dooruka ayaa arinkaas la yaab doon wuxuu dhahay maxad ka wada Umar Balfansi kadibna dooruku wuxuu ogaanayay in Asiya magaalada kaga tagi rabtay asagoona ogeyn doorukuna wuxuu dhahay Asiya san bay ugu sareen rabtay waxaan waxay agtaad wax kama yihimiya intuu xanaaqa ayuu meesha iskaga kacaya balse Asiya ay ka soo daba kacayso waxay ku dhaysaa waxyaalaha aan ogeyn iyo jireen markii hore dhigeyso si aan kuugu sharaxo asaguna wuxuu dhahayaa waxaad sharxi rabtaa in adigu ku ogeyn adiga tageysay ala kulli xal way isku dhacsan yihiin balse marka dambe meel ay la tagaysaa wayna ka dhaadhicinaysaa waxayna ku dhahaysaa sababta darteed aan u tageynay fikirkaasina fikir soconaya muusan noqonba oo wareyntii Umar ayaa diiday asaguna wuxuu ku dhahay wax walba Umar dartii ma u sameynaysaa yani Umar dartii miyad u baabiinaysaa riyadaada iyo sidoo kale riyadeena iyo wax walba yani Umar dartii miyad u sameynaysaa Umar hadii uu yani dagaal uu gal meeshii meed ka kaxaynaysaa yani wax walba noloshaada Umar dartimeed u burburinaysaa aduna waxa dhaysaa saawil ma jeeday Umar yani noloshayda ayuu muhiim ka yahay waana qofka kaliya soo haray waana walaalkayga marka hadda ka hor walaalahay qaar kamid aan waayo Umar ma doonay in aan waayo asaguna wuxuu dhahayaa waa yahay kadibna waxa uu sharaxaysaa arinkii ahaa in lacag soo qaadatay ninkii dabcan lagu magacaabayay Dooruk wuxuu u tagayaa Umar si uu arinkan ugu soo sheego ugu hanjoobo camal wuxuuna ku dhahayaa Umar ma wada hadli karaa Umar markuu ku dhaw wada hadlayna sax wuxuu ku dhahayaa Umar waxa sameynayso waa qalad indhaha kala furay ku dhahayaa Asiya adiga dartaa iiga tagribtay sidoo kale Sheewali ay lacag ka soo qaadisay magaalada oo ka tagaan oo meeshan iskaga tagaan marka ma doonaya Asiya adiga dartaa inaan waayo indhaha kala fur waxa sameynaysidna waa qalad ayuu dhahayaa Umar waqtigaas si xanaaqsan ayaa waxa uu raadinayaa Asiya muuqaalka xiga waxaan arkaynaa beerkii oo IBK wada fadhiya beerkii Doorukii muusan ku darsan intii horena muusan joogin klaaska markaas kadib Suuse oo ka soo maqashay Leila in shaqo cusub oo beerka helay inuu shaqo cusub toolga helay ayaa Suuse waxay beerku u sheegaysaa in yani oo shaqo uu haystay yani inuu shaqo helay toolga inkastoo asaga ogaa laakiin waxay u raacinaysaa in Leila laftarkeedu ay shaqo raadinayso markaas kadib beerka wuxuu dhahayaa yani ma aabahooda yani lacag uu diiday maxaa ku kalifay waayo muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Asiya Umar wada hadlaya Asiya waxa dhaysaa Umar waxa sameynayso waa qalad aniga waan cabsaday walaalkay ayaan waayay waxa soo dhan yani adigana waxa ka cabsaday inaan ku waayo sadarteed ayaan lacagta ugu qasbanay inaan soo qaato ugu dambeyntii asaga laftirkiisa ay baraale gelinayo aad buu ugu xanaaqayo haba inay sasinayaan wuxuuna ballan ka qaadaya mar kale in uusan dagaal gali doonin muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Senguliyo Gonul oo ayagu shaqadooda wata hal meel ka wada shaqeynayo baskiina ka wada shaqeynayo halka muuqaalka xiga arkayno ninkii Umar ah oo lacagta Asiya ka soo qaaday isla markaana uu celinaya Axmed Ilmaad iyo Sheewal Axmed Ilmaad markuu arko lacagta la yaab ay ku noqonaysaa qofka siiyay balse Sheewal ayaa u sharaxaysa wax waliba wuuna ka xanaaqaya waxa ay sameysay wuxuuna ku dhahay waxa sameynayso waa qalad muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Asiya iyo Dooruk gaarigiisa intuu Asiya ku soo qaaday shaqada keenay halkaas waxa nooga cadaatay in ay labadooda mar kale heshiiyeen mar kalena waa uu aaminay Asiyana mawduuci ah inay magaalada ka tagto way soo xirtay balse dhanka shaqada iyo xoogaa mushkilada ka jirtay waxaana la go'aansaday 3 cisho inaan lacag la siinin balse ay shaqadeeda sii wadato maalintii u horeysay maadaama shaqada ay jartay oo nis kaga tagtay yani kala bar ay ka tagtay shaqadii intay in shaqaysay intii kale ay ka tagtay muuqaalka xiga waxaan arkaynaa beerkii hooyadii soo wada cashaynaya isla markaana beerkii hooyadii waxay weydiinaysay cilaaqada ama yani Sarbi iyo gabadha Yasmin lagu magacaabo sidii isku yihiin beerkuna wuxuu dhahayaa waan isku fiicanahay Sarbi waa qof iska yar xanuunsanaya iyaduna waxay ku leedahay Yasmin si isku tiin yani meeyahan gabar qurux badan way la rabtaa kulli bay la tahay IBK inuu ka haray rabtaa islaantan balse wax yar kadib Tarhano ah toolga aabihiisa ayaa imanaya Ayla iyana isa salaamayaan marka Ayla isa salaamaan kadib beerka ayaa dhahay hooyo ku soo laabanaya markaas kadib
beerku wuxuu la hadlaya tarhaan oo ah toolga abiisa isla markaana dabcan wuxuu u sheegayaa in toolga uu shaqo cusub helay oo uu bariyahan ba shaqeeyo kadib wuxuu dhahayaa miyadan ogeyn arrinkaas halka muuqaalka xigan arkeyno toolga abiisu aad u xanaaqsan isla markaana toolga meeshuu ka shaqeynayay imaaday isla markaana wuxuu ku dhahayaa sida ugu dhaqso badan waa inaad iska saartaa dharkan waxaad rabtaa inaad magaca reerkanaga aad ceebeysid isla markaana isagoo dharbaaxi raba waxaa qabanaya caakif atakuul waa una hanjabayaa balse tarhaan wuxuu ku dhahayaa ni wiilkeygana soo dhex galeen caakifna si gaar ayuu la baxayaa wuxuuna ku dhahayaa dad badan ayaa sabab u noqday inay gacanteeda ku dhintaan adna kuwa ayaana kugu darin wallahi caakif fani waayo xalqadan in badan buu ka qosliyey markaas kadib aad ayuu uga hanjabayaa ugu dambeyntii odaygii wuu ogolaanayaa caakif hanjabaadiisa maadaama ay xaddaaf noqotay wuu cabsanayaa xoogaa kadibna caakif ayaa u imanaya toolga iyo cumar oo wada taagan isla markaana caakif wuxuu ku dhahayaa toolga waan ku tacsiideynaya aabahaga waan dilay wax yar kadib uu qosla xudhayaa waxaasoo dhan been ay hayeen waan idin ku ciyaaray laakiin soo qanciya aabahaga mar dambe ku hawlahaaga ma soo faragalayo kadibna toolga ayaa halka caakif mahad celin uga bilaabay boqor baa tahay subaxdii xigtayna isla caakif un bay hadal hayeenoo ayagoo iska jooga iskuulkii waxaa wada jooga hal meel oo yacni iskuulka weli may soo galin balse banaanka hore ayay taagan yihiin waxaa weeye toolga IBK Uljaan Cumar iyagoo caakif hadal haya isla markaana ninkii dooruka imanaya Leyla ayaa sidoo kale dooru ku mahadcelinaysa maadaama caakif waxaan u dhan ka dambeeyay balse kor waxaa kala socday beerka iyagoo isweydiinaya qofka talo aabahay u sheegay inaan meesha ka shaqeeyay yuu ahaa ayaa ninkii beerka soo booday wuxuu dhahay aniga ayaa u sheegay toolga ayaa markaas xanaaq wuxuu ku dhahay hamigaagu muxuu yahay waa uu ku boodiyaa inkastoo la kala qabanayo balse beerka dhahay wuxuu hamigaygu wuxuu yahay in aad saaxiibaday ka hartid oo saaxiibaday aad dhinac ka martid waan ogahay shaqadaas waxaad u tagtay si aad cumar ugu dhawaatid isla markaana ay bikee halka fursad uga heshid adiga ala kula xal dhamaantood waa la kala qabanaya muuqaalka xigna waxaan arkaynaa odayga orhaan oo suuq iska imaaday ama meel uu ka adeeganayo balse Shanguliya ka adeeganaysay Shanguliya hal ma uu ku qabanaya weyna ooyisa odaygan ay orhaan ayaa gurigeeda u soo qaadaya ayadana waxay sameynaysaa inta tiraado qaxwo ayaan ku keenay ay qaxwaha kiniin ugu daraysaa si uu u seexdo isla markaana waxaa la soo hadlaysa intuu seexan ka hor islaantii goonu lahayd wuxuuna ku dhahayaa Shanguliya xanuunsato gurigeeda geeyo wax yar kadib ayaan imanayaa odaygiina halkaas ay ku seexan doonaa maadaama Shangul kiniin ugu dartay qaxwiyo cabaya mashaaxiyo cabayay waa tahay markaas kadib muuqaalka xigta waxaan arkaynaa dooruku asiya soo qaaday isla markaana gurigooda ayuu keenayaa halkaana ma xumaa keeg ayuu gacantiisa ku sameeyay ayuu siinayaa halkaas ay waqti kooda qaadanayaan ugu dambeyntiina way soo wada baxayaan maalintii xigtayna waxaa la sugu imanayaa fasalka isla markaana qof walba mashruuciisa ayuu soo bandhigayay markii la gaaray mashruuci Cumar iyo Cumar dhahayo macna anaga mashruucana waxa weeye waxa ka hoos hadlay ninkii lagu magacaabayay Sarbi wuxuuna dhahayaa mashruucana wuxuu ku saabsan yahay nolosha يعني فقرada nolosha dadka degan xiridigaaga ayuu ku saabsanaa kadibna yani suusay arinkaas ka xanaaqo sax ku dhasay xasan soo qalad wuxuu yar kadib wasiirada dagaalay iska qabsanaya macalinkan wuxuu xanaaqay wuxuu ku dhaayay war horteeda ku dagaalamaysiin labadiina waa inaad ka baxdiin waxaad hadda ku hadlaysiin waxaad u sharxaysiin يعني maamulaha dugsiga aad u sharaxaysiin ama maamulaha iskuulka ayaad u sharaxaysiin waxaad hadda ani ugu leedihiin baxa kadibna maamulaha wuxuu ku dhaayay maxaa sameynaysiin dagaalkana muxuu ahaa ugu dambeyntii maamulaha wuxuu ku ciqaabayaa in ay qol ay buugaag iyo wax walba qashin ka buuxaan ay nadiifiyaan oo qolkaas sida caalamka ka dhigaan balse markii ciqaabta lagu ciqaabo kadib uu Cumar soo baxo Sarbina soo baxo Sarbi wuxuu arkay hooyadii aabihii isla markaana waxay ku dhaayaan maqalad kala sameysay mise isdagaal rabtiin asaguna wuxuu dhaayay dagaal kuma tilmaamay kara balse wax yar oo class ka dhexdiisa ka dhacayo ay saafuhayn waa kadibna macalinka waa uu ciqaabteen haddana si aadaya kadibna waxay hal mar uu maqlayaa in yani islaantan Shawala ay lacag siisay Aasiye يعني ما في فاهين كرو مقال كنا مثلا حيو مقالات حاجة إن شاء الله رجينية قابكو مقالي قابكو لوجو شرحيبا هذا بقى وحير كديب أردت أنو يتجيان عمر يو ساربنا وحلقي عقابته ذا أي مري لهاين إسلام مركانا أي دبعا يعني واجب كود جودن لهاين وقتها يدنك لو حركنا إنه هذا استيارين أساس إسلام مركانا وحيسو ديارين أساسية عاكف سرعان أيوة يعني تشيلا يلا ما نهان كوكلا أيرن لكل مايين halka muuqaalkan arkayno qoftii goonu lahada soo wacaysa orhaan isla markaana Shanguliya ka qabanaysa markay ka qabata kadib
waxay ku dhahaysaa ninkaaga waa u jiifaa gurigiisa ayuu xiisa ila tahay mar wuxuu ku dul dhacawn fadhiga ayuu ku dul dhacay waa u seexda wax ka qaldan ma garanay goonuulo ordaysaa subaxdii imanaysa waxay dhahaysaa ninkayga waxbaad ku samaysay gurigaaga ma seexanayo maxaa qaldan ee uga bilaabaysaa ninkayga maxaad ku samaysay isla markaana Orhaan iyo isku dayaysaa inuu kiciso balse Orhaan maadaama kaniin cunay ma kicayo isla markaana waxay go'aansanaysaa intuu Orhaan ka kacayo inay halkaasi la joogto oo halkaasi joogto ayay go'aansanaysaa Shengulu waxay dhahaysaa wax dhibaato uma arki dad halkan joogaysid halka muuqaalka xigaan arkayno Caakif iyo Nabhat oo imaade maqaayad aad u qurux badan balse nasiib daro Ayla ayaa maqaayadaasi joogtay isla markaana Ayla waxay wacaysaa Suuzaan waxayna ku dhahaysaa Suuzaan xagee joogtay waxaan joogaa bay dhahaysaa shaqadii baan joogaa yani Caakif maanta mar waa kamaysaa halkuu joogaa yani miyadan la soconin Caakif iyo Nabhat ayaan meesha ku arkay waxaas dhahay kulli Suuzaan way la socotaay waxay dhahaysaa maxaad ka wadaa maxaan warkamaysid ay dhahaysaa yani Ayla ayaa dhahaysaa warkamaysid arrinkaasi in Caakif iyo Nabhat ay halkan joogaan yani wayna labisan yihiin kadibna waxay dhahaysaa soo lagama yaabo inay halkaas ugu wada kulmeen in ay yani labadooduba inay shaqo u yimaadeen soo lagama yaabo labadooduba halkaas ku kulmeen kadib waxay dhahaysaa Ayla iyadoo hadal ku soo gaabinaysa uma maleynaya labadooduba way labisan yihiin hal meel way wada fadhiyaan Suuzaan waqtigaasi shaqaysa ayaa yaabayso isweydiinaysa ninkan waxa uu wado iyo wuxuu sameyn rabay ay isweydiinaysaa sababtoo ah wax yar ka hor Caakif Suuzaan wuxuu ku dhahay aniga waxaan tagayaa waxaan la soo kulmayaa kaliya niman shaqaale ama yani niman oo sheer naga wada dhaxay ayaan la soo kulmaya ayuu ku dhahay marka Nabhat waxa meesha geeyay ay la yaaban tahay muuqaalka waxaan arkaynaa gabadh Yaasmiin Haydiyo Uljaan oo wada sheekaysanaya isla markaana waxay ka wada sheekaysanayaan in Umar iyo Sarbi ay aad yani isu shaabahaan way aad isu yar egyihiin dhanka dabeecadda mid walbana uu jecel yahay in dagaalka iyo waxyaalaha lamida iyo mid walba waxyaalahaas uu jecel yahay balse Uljaan uu ogyahay walaalihiin balse gabadha Yaasmiina ma ogo wax yar kadib ayagoo wada socda waa Aasiya iyo Uljaan iyo gabadha Yaasmiin Hayd waxay u soo galayaan Sarbi iyo Umar oo hawshoodii wada wixii nadiifinaya waxayna arkayaan in halkaasi aysan dhibaato ka jirin oo dabcan aysan wali istagaalin wax yar kadib muuqaalka xiganka wada waxaan arkaynaa Suuzaan oo taksigeeda soo qaadatay una timaaday Caakif iyo sidoo kale Nabhat balse intaysan Suuzaan taxi ka soo degin Caakif ka ka arkaya Nabhat ayuuna qarinayaa Suuzaan markay tiraado maqaayadii soo galaa Caakifna wuxuu fariisanaya qolaa caraba wallahi muuqaalkan aad ayaan ugu qoslay Caakif markuu qoladii carabta la fariisto wuxuu dhahayaa ahlan wa sahlan yani arab wax kale kama yaqaano ahlan wa sahlan ayuu dhahayaa kadibna wuxuu dhahayaa seetihiin afturka ayuu ka hadlay laakiin inta kadib arab ma yaqaano markaas kadib ay Nabhat markay Suuzaan timaado wuxuu dhahayaa يعني تنوى كريجيم يعني وحاسكيغا بو بنيم حبيبي ما تقانتا تركيدا بنيم waxay dhaan waxa leedahay dhaan ma fahanteen marka wuxuu dhahay tan waa jacaylkayga camal waa xabiibtideedii xabiibi ayuu dhahay waliba tan xabiibtadeed ilaado waa iska xabiibtadu dhiilaa caadi xabiibi ayuu dhahay runtii Caakif muuqaal yani xalqadan aad ayuu fani u ahaa waata markaas kadib Suuzaan waxay ku dhahaysaa yani halkan maxaad ka qabanaysay ma kuwana la kulmaysay Caakif wuxuu dhahayaa Suuzaan maxaa ka qaldan kuna la kulmay halkan maxaa ka soo doontay Suuzaan waxay dhahaysaa wax yar koor Ayla ila soo waxay tiri Caakif iyo Nabhat hal meel wada fadhiyo yani wada cuntaynaysi lamaan ahaana kadibna wuxuu dhahayaa ma waxaad halkan uga jeedaa qof Nabhat u eg aduna waxay dhahaysaa ma ugama jeedi iga raali noqo ay ku dhahaysaa Caakif oo iga raali noqo markaas kadib wuxuu ku dhahayaa wax dhibaato wax caadi aan u arkaa yani wax dhibaato ma jirto qoftaasina kaliya naga maseertay wayna wareersan tahay hadhageysan warkeeda Ayla ayuu jeedaa way tahay muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Umar iyo Sarbi oo ayagu shaqoodu wata Sarbi ayaa dagaalka oo daandaansanaya yani Sarbi ayaa sabab u noqonaya in dagaalku bilowdo daandaansi yani waxa laga yaabaa in wax kale u taqaantid balse Sarbi ayaa raba inuu dagaalku dhaco qofkaas ayaa daandaansi la dhahaa yani Umar ayuu sabab ka raadinaya sabab isku dagaalan wax waliba uu ka xanaaqay ayuu ku dhahayaa wuxuu ku dhahayaa nin horta ma adiga cabsataa inaad iga cabsataan u malaynayaaba sababtoo adigoo og inaan walaashaada gaariga tirsiya maxaad ilaa hadda ila dagaal laadahay maxaad u leedahay walaasheeda kale ballan ka qaaday adigoo og inaan walaashaada gaariga tirsiyay maxaad ila dagaali laadahay adigoo og inuu waxaas dhibaato kugu sameeyay maxaad ila dagaal laadahay fulay baad tahay doqon baad tahay aan waxba garanaynin wuxuu dhahayaa aniga haddii walaashayda la tirsin lahaa gaari asagoo sheegin wixii ku xigay Umar ay xanaaqayo xoogaa u hanjabay balse Umar oo feer qaadi raba ma yaan dagaalka bilaabi raba balanta ayuu soo xasuusanaya kadibna wuxuu go'aansanaya inuu halkaas dagaalka ku joojiyo
kadibna sarbe ayaa cumar wuxuu isku dayaya inuu meesha dhanba iskaga tago iskaga baxayo isku dayaya sarbe ayaa isaguna soo daba kacay wuxuu ku dhahay cabsanaysaa soo maaha lama dagaalami kartid soo maaha kadibna iskooba ayaan filayaa iskooba tan wax lagu xaaqaynay tahay geed yar ayuu lugta la galayaa geedkaasina wuxuu sababayaa in kabadh iyadii meesha yaallay ee bugaagta lagu gurayay ay kusoo duldhacaan halkaasina dhaawac ugu soo gaaro kadibna buuqa halkaas ka soo baxay waxaa maqlaya Aasiye Yasmiin iyo sidoo kale dabcan Urjaan kadibna sarbi Yasmiin oo dul taagan wuxuu dhahayaa Cumar yaasan igu sameeyay qofku waxaan sameeyay waa Cumar wuu yaabaya isagoo hadal oran ay xalqadu dhamaanaysaa waxaan aad iyo aad u filaynaa xalqada faantay la soco gooskooska iyo muuqaalada xiga iyo sharaxaha xiga waa maasanta daawada muuqaalka laag noo saar waanu saaxiibkeena Khalid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh